الوزارة ونود ذا شيء ويلشني وان أرجني إيه كون أرجني إلهي باكم ما هتسن هذه أنا ونود ذا شيء نقولون كقرب تاجنا شعبان دول اللي واباي Ra'iisul Wasaare mahad badan ayaan kaaga hayaa sida aad uga jawaabtay fariinteenii oo aad dalkooda ugu soo celisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xanibnaa xabsi ku yaala dalka Tansaaniya waa hadalada Fawziya Xasan iyadoo telefoonka kula hadlaysay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre waxayna la dhalatay Maxamuud Xasan Warsame oo ka mid ah 5 qof oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Tansaaniya رئيس الوزراء أنا جواي قاسم فوزي حسن علي ده قبل الجليب كذوبت أنا جواي جليب كجادي يعني وفرح المدام أيجس الجواب وعن أيجس يستي أنا كم هاد علنا يا دمان ما ضحى الصومالي أنا يا هاد علنا يا خاصة قبل ولا شيء أيضا يقرب تاجر مريم ياسين قرب كان سيستي أيضا يسلوك له هاد علنا يا رئيس الوزراء وحك له على هلا يا دليل ركله ولا عليه أودن قوة تنزانيا أنا قحر وقاعد سنة هيك مدحوينا دمان دل walbo maxaabiista nooga xiran Soomaali inaan noo dadaashaan ka rajeynayna dhamaantii qaar kamid ah dhalinyaradii lagu guuleystay in dalkooda dib loogu soo celiyo oo la hadla warbaahinta qaranka ayaa u mahad celiyay dawladda Soomaaliya waxayna ka sheekeeyeen dhibaatooyinkii ay kala kulmeen xabsiga aad bay nolol wanaagsan tahay maadaama aan ka tagno wadankeena aan dawlad lahayn maanta aan ku soo laabanay wadankeena iyo dawladda leh waxaan ay gargaaray dawladdeeda wadanka Soomaaliya safirka Soomaaliya ay gargaaray muddo badan oo financialka 7 sano sidaas darteed macnaha ilaahay ayaa ii soo qadaray macnaha in macnaha safirka yimaad kabacdina waa ii jihaaday kabacdina waa iga soo daayay sidoo kale waalidiintii wiilashooda ay dawladda Soomaaliya u soo celisay ayaa si weyn ugu mahadnaqay xukuumadda doorkii ay ka qaadatay ergeyga xafiiska Ra'iisul Wasaaraha u qaabilsan arrimaha ka hortagga tahriibka iyo xuquuqda carruurta Marwo Maryam Yaasiin ayaa ballan qaaday inay wadaan dadaalo kale oo lagu sii deynayo dhalinyaro kale oo ku jira xabsiyada dalka Tansaaniya kuwaas oo eheladooda qaar ay yimaadeen maanta garoonka Aadan Cadde ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله أيجنا وحن إلهي كبرينا إلهي قصنا دكتور إنوسو ونقدر مركز تيجوا ما شاء الله قلبي خير ما شاء الله sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay dawladda Soomaaliya waxa ay qaatay talaabooyin xabsiyada looga sii deynayo boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro ayna ku jiraan dumar iyo carruur tanina waa adeegga dawladda Soomaaliya u qabatay bulshadeeda deeqaw Karjiino warbaahinta qaranka Muqdisho